maanta kama hadlayno Katrina Kaif, Deepika Padukone, Kareena Kapoor Khan walaa Angelina Jolie. Waxaan ka hadlaynaa in yar oo kamid ah qisada Munadiina markaan leeyahay waa dareemi kartaa culayska iyo dareenka ay ku fadhido. Jacaylka wanaaga aad ii muujiseen ayaa iga keenay Ilaahay kii daayo. Clipkan aad halka ka aragtaan waxa weeye markii kaamkii aan ku jirnay la xiray amar dawladda ka soo baxo degdega lagu qaaday oo maalmo gudahood la yiri albaabada ha loogu laabo. Aan marka waxaan kamid ah dadka meesha ku jira. Dadku waliba ma sinee waxaan ahaa dadka farakutiriska ee sharciga xun la siiyay, macnaha sharciga 2 sano ah haysta markaas. Sojournadan aan haystay la passport bay ahayd, waxa lagu qabsan karin shaqo lagu qabsan karay, laakiin waxa ay naf lahayd ma jirto. Dadka Soomaalidana inta badan lama siiyo, laakiin interviewga laftigiisa oo dhibaato dabadeedna waxaa dhacday in interviewga wax badan iga qaldam. Markuu iga qaldamay aan ka soo baxay, dadku inta badan waxay isku qancinayaan Soomaali baan nahay inaga xinu xitaa hadaynu wax been cad iska sheegno weyn la siinayaa. Hadaladayda u fiirso, hadalada imika aan ku hadlay u fiirso. Soomaali baan nahay, yacni sharcigeena waa iska leenahay. Run haddaan ku sheego taas waa been, yaan lagaa dhaadhicin, yaan marnaba lagaa dhaadhicin. Anigu ismaan sakran, maan tamar yarayn, maan dadaal yarayn, laakiin haddana qadarta ayaa saa iga noqotay. Waayahay interviewga markaan kasoo baxay anoo aad u maro jabsan oo dareemay inuu xiga khaldamay. Haddana waxay dadku igu qancinayeen ka 5 sano bini aadanka iska helaysaa. Soomaaliyeed baa tahay weligeedii allaheedba lama siin Soomaali macnaha sharci ka yar 5 sano oo asiilada haddaad weydid waxaad helaysaa kaa kale bini'aadnimada ee 5 sano wax kasta kuu qabanaya. Waayahay interviewga waxaan ka qaaday bishii 7 baan ka qaaday 3deedii waan sugay dadkii oo dhan sharciyadii way igu dulqaateen wax kastana raagitaanka wax kas xun yani waxaad sugaysid oo aad kuugu raago kale aad ka warwarsan tahay wuxuu ku dhamaan doono aad bay u xanuun kulushahay. Waan sugay, waan ducaystay, Ilaahay baan baryay. sanad dhow baa laygala maqnaa jawaabtii. sanad dhow baa laygala maqnaa. Markii dambe bishii afraad 17keedii 2018 ayaa laygu dhawaaqay layiri soo doono xilligaas balanta leedaas joornada soo qaadanaysa sharcigaagii lama sheegin wuxuu yahay. Waan orday kasturadan aaday meesha macnaa laga soo qaato sharciyada. Markiiba afkayga soo galiyay sugitaan weliba badan kadib oo kuyu ah wuxuu afkayga soo galiyay sharcigaas xun ee 2 sano ah. Wallaahi xitaa waxaan idhi yani مي باسبوركي معنا باسبور ماله إلا وحن ما فاهمين إنه لفظنا يهاي أو وحبا يهاي مركبوا فاهمي، لكن وحن مغلط شري قاربة باسبور له. أقول بس ما لها بركسير والله واشوقي قلبت أيام ملح ذي نقطة حنون زايدان درهمي اللي كل أيام صباح ذي يعني واحد سلاذا إمي كمسكحة ذا دريمية شرعي بيساس ودن أقول دبعتوني سي أما يعني ما يدا وحوين بقى، لكن وين تاي وين دوغان دون تاي نا تاي وح أدوين أدوك سيد وان شرعي وسقطي شرعي ما أوران كره وحي وسقطي الحمد لله منك، لكن ما أنت حنون بيجوها وسقطي ضدك أنت بدن قارب إسك توري قارب إسك تيجي تريان جاردن وان إسك إمي أنا وحن صومر ميل قلص ولا يرادو بياس فنيسية حاجة وإسلا صهاد لي وإسلا شك استي وحنا منا مايا منا كمان حيسديبن لنحنا هاو دقاقن واي هدف كاغا نوش ugu muhiimsan halkan ayuu yaalaa. hadafkaaga adduunka ugu jecel intaas oo dhan ordaysay halkan baa ku rumayn kartaa. Haysdiibin muna horu soco dadaal maalintaas go'aan soo gaaray oo aan meelna uma dhaqaaqayo dhinacan kalena u jeesan maayo ilaa aan sharciga gacanta ka dhigana talyaanigan ka tagi maayo hadafkaygaas aan jeclahay aan kaga dhabaynayo. sidii baan gurigii u imi murugaduna waa mid mar walba aan walaalanahay oo iyada igama maqna, laakiin adayg iyo calool adayg baan weeshanayaa. nabarka ugu weyn haddaan idin sheego oo aanan yani xagga dambe waxba yaan idinka sheegnaa halka idinka sheegaba
nabarka ugu weyn ee sharciga iga haystay wuxuu ahaa hooyo. yacni sharciga talyaaniga waa meesha keliya hooyo kuusoo qaadaysa, waa meesha keliya oo aan ma garan iminka meelo kale waa la sheegsheega, laakiin waqtigaas koley waa meesha keliya oo sharciga talyaanigu uu ku ogol yahay inaad hooyada macaan aad soo qaadatid. taasaa markii u horeysayna number 1 aan talyaaniga aan dhidibada ugu aastay, way dadkii oo dhan way iga tageen intooda badan. intii joogtayna markii sharciyadii heleen way ka tageen, inta sharciga ka xumaadayna markiiba way iskaga tageen. allayla haddaan qaldanayn inanbaa iyana sii joogtay oo markii dambena sidaydaa loo yar qabsatay haddaan qaldanayn. oo weliba Soomaaliyeed macnaha reer Muqdisho ah oo yacni xaggaa sheegan jigjiga Itoobiya si fiican interviewgooda martay, laakiin qatartan meesha ku jirtay xunbaa ka yar qaldamay. anigu waxaan ku daalinay sidii baan dadaal u sameeyay, iskuulkayga baan iska sii watay, waxaana sameeyay looyarad baan raadsaday. anoo maalmaha kamid a looyarad raadinaya ayaa inan maxaa la yiraahdo ilaa khayras iyo maxad walaal dad maqlaysid aad baad mahadsan tahay, inan maxaa la yiraahdaa ayaan is aragnay. markaasaan looyarad anoo Soomaali dad weydiinay, markaasuu yiri anaa garanaya gabadh wanaagsan oo sharciga soo dhicisay aniga laftigayga. sidii baan aan isagii u raacay meeshii xafiiska u soo tusay, meesha u dhaweyd markaa meesha ku kulanay meeshaasi. sidii baan looyaradii u wada heshiinay. dabcan talyaaniga waqtigaas waa iska jabsanayay, laakiin Ingiriistan kaga fiicnaa. looyaradana si wanaag English bay ku hadlaysay, way isfahanay. sidii bay markaa ay iiga gudoontay kiiskaygii, ay tiri anigana hawshaada geliya, adigu sii noqo, sii soco soo noqo, maalin walba ballan waraaq dhalasho soo samayso inaad Soomaaliya tahay, Muqdisho u dir, waqti badan kaa qaadato, marba dib ha lagu riixo, xataa mar negative hala isiiyo iimay sheegin iyadu mar dambe oo dambe ayaan ogaaday. mar negative iyada laftigeeda afka laga geliyo oo haba loo diido, laakiin iyadoo iga qarnas marba niyadii ii dhisaysay. kadib waxaa dhacday in iyadoo kiiska iigu jirta oo le waad helaysaa ha werwerin aduu keep going horu soco, ayaa waxaa soo baxday amarkan dowladda ka socda oo ah in xerada albaabada loo laabo. anigu markaa waxaan ku jiray dadkaa sharcigaa xun haysta, aan xaqna u lahayn in isbaraaro ama projectiyo ama guryo kale ama soo dhaweyn labaad oo kale ay helaan, maadaama sharci xun haysto. markii waxa lagu yiri waxaan ku sheegnahaa gabadh aad u xanaaqsan oo iyada laftigeeda shaqay weyday Soomaa, shaqadoodii baa meesha ka baxaysay iyaga laftigeeda shaqaale oo nervosade ayaa amde walaal xagaan aadaa. markaasaan ku yiri markaas anaga waxaan igama gelin 3-4 iyo kula gaarin, markaasna waa duhur ka bax, waxa galaabtaada ka ururso, dibadda iska eeg. anoo markaa yaabana xafiiska uga soo baxay ayaa inan wanaagsan oo George la oran jiray oo kaamka joogtay ayaa waxay ku tiri Munay maadaama adigu aad xoogaa talyaaniga taqaanid, maayarkii dadkii oo dhan community oo dhan oo reerkaas xaafadaas magaaladaas ahaa baa ku taagan dibadda kaalay soo baxo salaan oo laba erayde. meeshan halkaas laga arkayay sida halkaba ka aragtaan journalistayaal, dad buuq balaayo wayda sheeko iska cunsurnimo abay ahayd oo dadka dibadda loo dhigay. markaa dadka wareeyaashii oo dhan ba isku soo buux dhaafiyay. marka waxaan ku yiraahdaa kuma galayaan ku yiri aniga taydii garan la meelan u kaco iyo waxaan sameeyaa markaa garan la daqiiqadaas, waayo ma aan doonayn anigu inaan talyaaniga ka tago, waan ku adkaysanayay ma rabin waxay doonto waxay u qaato. laakiin sikinkaas waxaan aad uga warwarsanaa say wax noqon doonaan, waayo looyaradeeda hawsha ii waday meel aan tago oo kale iyo magaalooyinka kale talyaaniga dabcan iyo dad iyo qaraabo iyo asxaaba way ii joogeen, laakiin meesha ay wax kaaga socdaan baa wanaagsan inaad joogtid. waan ka diiday gabadha, waxaan ku yiri ma baxay dibadda uma baxay, baan ku yiri aniga waan diidaya leedahay Munay please. oo iyagoo shaqaalaha dhan bay aaminsanaa ninka meesha madaxda ka ah booska ee aaminsanaa waa ninkan isaga maayarka weeye,
marka shahaada ay guddoonsiinayaan maadaama aad aan wax u dhigan jiray aadna aan ula shaqayn jiray dagaal iyo buuqna aan lahayn danteed garanaysay tayadun ku mashquulsan xitaa dadka markay yani iska kaamka dadku isku mashquulaan oo islaayaan oo isku buuqaan maalin walba dad la xirayo anu dibadaasaan iska mari jiray telefoonkayga iska qaadan jiray baaskiladeedaan iska raacraaci jiray kubadeedaan iska ciyaari jiray aniga sidaa aad imika bay aragtaan iska goni socod baan iska ahaa marka iyaguna aad bay jeclaan maadaama iskuulkana aniga kaliya ee Soomaaliyeed ka dhigan jiray waliba aniga kaliya ayaa kaamka oo dhan gabadh ka dhigan jiray waqtigaas khaasatan gelinka hore gelinka dambe habla kala Afrikaan way dhigan jireen anyway waxaan ka dhigtay oo kale course photographska ayaan ka bartay oo dhinac ka waday iskuulkayga oo tertiary la yiraahdo iskuulka dhexe ayaan ka waday shaqo volunteer ayaan kala shaqeeyay kommunahaas ama xaafadaas magaaladaas marka aad bay dadku ii yaqaaneen oo ay macnaha oran jireen qoftaas oo qof meel ma garanaysa ka soo baxayso dadaaleysa sidaas ay dadku horta igu barteen markaas anoo markaa diidaya oo la dibadda uma baxayo aan shaqadeeda ma soo noqday ayaa ninkan oo xagga ka socda maayarka iyo magaaladaas maadaama magaalada aan ka sheekaynayay kaamkayga in yar ay kala fog yihiin oo gaadhina ku qaadi jiray markaan shaqada iyo sawirada iyo wax ka soo qaadayno ay ninkaas ay yimid munay kaalay maayarka ku doonay anuu hadli ma aan koori anuu wariyaal xasan lama hadlayo lama hadlay sida kaalay salaanu baa lagu yiri dadka oo ku sugaya macallimiintaada iyo waayahay waa baxay dee markii dambe waxaan kamaradii oo dhan anigoon diyaar u ahayn ayaaba dee ay mar igu soo wada jeesteen kamaradihii meesha oo dhan oo waxay la yaabeen oo iyagana soo jiidasho gaar ah ku sameeyay meeshaas waxa ku jiray ilaa 600 oo qof aniga sababta dadka waa laga yaabaa qof macalinkiisa garanaya qof saaxiibkii garanaya qof shaqaale garanaya laakiin aniga magaalo dhan ayaa i wadatay oo markiiba igu soo cararay sida halkaba ka aragtaan muna maxaa ku dhacay muna maxaa sidan muna maxaa xagaad aadaysaa maxaad qabanaysaa aniga markaan kamaradii oo dhan isoo wada jeeda ayaan ku riday meesha ka bax baa lagu yiri marka kuwani ma ogeyn inaan sharciga xun haystay 2 sano oo waayo de sharcigan aan haystaa xaqna uma lihi inaan si joogay ugu yiraahdano yaa kugu yiri dadkaas un bay ugu yiraahdeen waa kuwa yaabay waa ka demaayr dadkii oo dhan saas ii soo eegeen waa ku igu yiri maayarka markaas igu yiri meesha aad tagtid ma garanaysaa أنا الدنيا كيرنين قياني بيس كمر دورة وحية كاميرا قحوتية ديار نواها وحية كاميرا ضنوي هيان مراسا نقول مايا ميل الله ميران تكنا كرم مايو أول بأنا كلي جبان تلياني جيمي كلي جبان نولا دي أمنا ملايين إن سيدا يرى سيمبل كا أي أورانا يان مركلية دقيقة تبدأ نوقع بح يعني أنا مرة بحس لها يعني دتك مادام أيديك يعني كاتشلي وحي شقالة أي وحي دتك مضحدي لكن ما ركي دناناتو والله كتحني عندنا كوتشينين ويا بين دادنا حجر ما يمنعسا قرقي كم ما يراعيسا ما يلتشوقي سانيكا مركزان كوري أو محن كديديا ها مركزي أدوك مركبة هالكي من إسكول بديك تاسكول كذا وين رتم ما يسوق في تدارس وقفنا نلاش قيسا سيدا بكاميرا دي هي وحي أفضل بيرت أنا كحيسانية ما يركير أنا كحينية وقتن مركن اللي كحيني حتى ما آمن يسام ما دام إكحيان تبدأ نوع عاويا لكن أنا جوها قف كلها منا سالفة إيطاليا يعني منا بتبادي إيطاليانية يعني أنا هرمود وأها وحي دad halka marka meesha joogay oo tusaale leeso qaadanayo laha bal qofta sida u dadaalaysa bal qofta noocaasa ay dabada dhigayaan waayo dadku inta badan waxay ku marsiiyaan samaha dawladdu Afrikaanku waa tuug Afrikaanku waa sidan Afrikaan xumaan bay ka sheegan aniga marka tusaale ayaan ugu mudnaa dadka dhan marka saas darteed baa meel kasta leek haysanayay waraysi يعني soo qaaday alaabtayda waa gabadhii sida kul ilaah leysay taas xikmadda meeshaas ku jirta waxa weeye qof bin aadana weligaas yani weliga ayaa laha yani ha ku qaldamin wuxuu noqon doono ilaah baa og waliib la sikinkaas wax kala dareemay yani adduunyadu si cajiib u tahay aniguna run ahaantii waaba aaminsanahay sikin gudihii waxba isbedeli karaa weliga marka qof bin aadana noloshiisa ha dhayalsanin
ما ogid qofku yahay qofkan ma ogaan kartid never ever inantaas wallahi intii alaabta ii soo qaaday ayaa waliba waa raacay de alaabta ila meeshii taalay ana la soo qaadiyay alaabteedii kabahayg way soo qaaday shindid baa ana soo qaatay marka aan alaabteeda soo qaaday iyana kaba ii qaadaysay waxay ku lahayd Munay oo ku bariyahay sheegin qoftiina aanu ahay waraaqda ku soo siisay waa ku bariya aniga shaqadeedii baan waayo waan ku bariya Munay cidna ha ii sheegin ha i tilmaamin hadii kale waxa la oranaa cunsuriyad والله سيدا كل أي لحظة شيء مركي هره أدبا نقح ماضي وايسي لأن حريص أي لحظة شيء لكن مركي أركي إن يد بشقة يدي ويدي ويد بس كإسترس هيد أحيان السجداي واللي بلي هدي كلام مرول بالي ويديني قف قوارع ده كل ديبه كوجو يرموناي كام ككبح عدو نوشك قف ككلية لكن السجداي واسك قرية وهاي محك فايدة يدي بقى قف كويسكار دبانة sidii baa alaabtii la soo qaaday sidii waa kan markan aan gaarigiisa mayrka lagu qaaday salaamaya wariyaasha meel aan ka gala ma jirto albaabka xagga dambe macna albaabka guriga ma lahay laakiin guriga meel buuro leh ku yaala meel baan ka soo wareegay gaariga meel kale la soo dhigay macna waxa la maadaama ninka mayrka iyo dadkan oo dhan ay dawladda ku jiraan ayay aad noogu wareegayeen aad bay noogu wareegayeen way talaabo khatar ay dadkaas aniga dartay u qaadeen وايد ولدك سور تشيستن ولد ولي بحلقة أذكر كناي أذكر قريجي بان ما شاء الله هبي بان يرتري ما تشو كم عندي تشوقي كام كأيان قلاي احترام إيه شرف بان هلاي يعني قف كسته حافظات قف كستوي إيماني قف كستوي وريسني محاد أنيسا محاد عبيسا محانكو كنا محاد اللي كان يسبوكي حقه محانكو دقنا يعني كل أن عادي حين وأنذر ليفلا ayaan kala kulmay aad bay igu muujin jacayl iyo aad wanaag adigu ana halkii shaqooyin waraysiyo horta nafta laga qaaday macnaha mar walba waraysi taagan mar walba sidan adigu markii dambe shaqo fiican balay soo helay shaqo aan aad u jeclaay shaqadaas oo ah dadka dalxiisayaasha inaan magaalada soo tusto marka gabadhii marka kaaba ama booska ahayd ayaa marka shaqadii siinaysa dad wada madaxan la xiriiray markaas waa wada journalistiyaal waa wada dakaat waa wada siyaasiyiin waa wada hay'ad wad yaabaysa dadka marka igu soo xidhay oo qof walba doonaya marka maxaan kula qabanaa maxaan ku sameynaa dabadeedna dad badan baa iyana jiray oo Talyaaniga meel kasta iga soo dalbanayay laakiin aniga halka ku adkaystay maadaama aan doonayay halkan inay dacwadeeda lawyerku ay halkan ay iga sii socoto kadib waxa dhacday adoo anigoo aad yani ma fiican maraya yani hor socod dareemaya inuu wixii furfurmayaan ayaa amarka Ilaahay aan dabaqa soo dhacay halkan aan ka soo dhacay si xun baan u dhacay halkaas ayaan ka soo dhacay ilaa halkan hoose xilligan imanay ma garanay madaxa gidaarka iga soo horjeedan ku dhuftay dabadeedna caadi baan u soo duulay birtaasaan lugta ku dhuftay laba lugta kala noqotay waxa moodayay lugtan in la jarayo waayo laba kala noqotay kadib waxa dhacay inaan halkaas bil sii jiifo waa habeenkii xitaa keligii baa guriga joogay telefoonkan u gurguurtay anoo qaynaya iyaga ma soo kiciyay waliible iyagoo dadkii kabna laalaadinaya kabna sita heerde ay yimaadeen ambulance ba degdeg lagu qaaday adigu bil baan markii dambe aan halka aan jiifay wax kasta way iga kala dhaceen laakiin shaqooyinkii iyo wixii iyo dardartii oo dhan way iga kala dhacday aniguna aad waxaan ugu baahnaa markaa shaqan aad ugu baahnaa kolkoolintan iyo dadkan iyo iscaruurintan iyo waxaan igumay socon ay dadkan ay igu wadaan waxaan rabay shaqo adigu anyway markii dambe الحمد لله اسكلدنا هذا اسكول كي حقنا لي يوسف بدلي رير كلامركا او عاصمه halkan Roma magaalada macna centerka ayaa hadana isoo qaaday markay isoo qaateen waxay halka joog bilka halkaas aan ku dhigaynaa marka reerkaasi waa reer yani xaafadaha taajirinta la yiraahdo yani waa meel khaas ah degan yihiin oo dad aad u ladan weeye halka cun oo cabba leegu yiri marka 19 wixii laakiin dee cunto mayse ila qof weyn baan hab mas'uuliyada ka dambeeyaan may baan shaqan doonaya adu markii dib shaqo ay geeyeen shaqo sharaf leh ay geeyeen waxay yiraahdeen waliba dadka ay geeyeen meeshii xafiiska meeshii ay markaa ay geeyeen waxay yiraahdeen deemuna waad garanaysaan oo qoftii iyada ahayd
alla maya wallahi garanayna inantii baa ahaa dee inantaasi anagu shaqaba lama rabne laakiin iyadaa shaqo rabtee dee ogaada iskuulkeedaan ha dhigato gelina ha shaqayso yacni okay bay yiraahdeen sidii waxay ii bilaabatay markaa nolol cusub oo rajo badan leh oo rajada ugu weyn marka aan leeyahay maxay tahay weli waxa weeye sharciga fiican ee Talyaaniga in aan gacanta ku dhigo oo kana leega bedelo looyaradii sidii bay igu dadaalaysaa sidii baan u sii socdaa xataa looyarad kale kaashatay show in tan negative la siiyay bay hadana looyarad kale kaashatay aniga ma sheegin markaa mar dambe oo aan sharciga soo qaadan doono ayaan ogaan doonaa marka maxaa dhacay shaqadaas ka sii watay aad baan ugu yar kala degay iskuulkaygaan watay shaqo contrado ma dhacdo mid la yiraahdo oo forever ayaan helay sharcigaygina waa daba socdaa aduu markii dambe waxba yaan hadalka idinku dheereen ma doonayana inaan laba qaybood waxa idin sameeyo kanba idinku soo koobaya markii dambe iskuulka waa dhameeyay corona baa isna iga soo galay iyadoo wax lii bedeli lahaa adigu markii dambe waa interviewgii aan galay wuxuu ii noqday yacni mid aad iyo aad uga soo horjeeda kii berigii hore aan galay waayo kii hore aad bay igu kakanaa waan xanuunsanayay kana aniga VIP ah oo nafisa oo qabow oo markaa luqadeedii baratay oo kalsooni buuxda leh oo shaqaysata shaqan kontraad haysta oo iskuulkeedii dhammaynaysa oo haddii ilaahay wax kasta ay dee u wanaagsan yihiin ayaan interviewga galay wallahi ninkii interviewga ka qaadayay aad buu ila dhacay yani turjumaan uma baahnayn English xitaa maalinta hore waxaan rabay in English lagu hadlo maalintan English buu igula kaftamay maana qoftan qof aqoon leh sidii buu igu saxeexay oo yiri muddo yar karoni waxaas ba iska jiray laakiin laba week tirso waxaan helaysaa anaa ku ballan qaaday sharciga ugu fiican sidii baan u sugay sidii baa markii dambe la soo dhajiyay oo laygu yiri sharcigaas ayaad ku guuleysatay sharcigii markii la sheegay waxay ahayd 7 ayaan lacagta iyo baasaboorka waxaas aan soo bixiyay waraaqigan markaa haystaa marka ilaahay hooyo naxashana ka waraabiyay hooyo baan keenay Kenya walaalkay baa isna markaas Kenya jooga oo markay hooyo joogeen 2 week meelahaas ayaa walaalkay wuxuu soo baxay anu balan waxaan leeyahay 6 bisha 11aad walaal wuxuu ka soo maalin jimcaha walaal wuxuu soo baxay khamiistii aniga jimcihii ayaan sharciga soo qaatay bitaaqada hooyo already waxay ii joogaan Kenya hooyo waa sheegay already intaan hargeysa xagga ka keenin ayaan sheegay ku hooyo waa helay aad bay ugu farxday aad bay marba igu soo tacayn jirtay anagu markaa aad u faraxsan hooyo in yar bay juucjuucday khamiistii walaalkay baa diyaarad soo raacay Germany wuu ka soo digay aad baan u faraxsanaa hadaf kale ii rumoobay ahaa hooyo hadafka koobaad aan Talyaaniga u joogay ahayd hadafka koobaad aan baasaboorkan aad iyo aad isugu duleynayay inaan u qaato bay ahayd dib iyo dhaawac kasta u sameeyo sharciga aan helo aan maalin iyada ku keeno laakiin jimcihii markaa soo qaaday walaalkayna khamiistii ka soo dhoofay sabtidii axadii hooyo macaan way geeriyootay hooyo ugu jirtaa ugu jirtaa